السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada dhammaan akhyaarta ku xidhan channelkeeni Somali Network Classroom. waxay noo socday course kale magaca Python Programming Language. insha Allah meel sari weli meena gaadhay oo basic hore ayaan iska sii dhisana. ardaygu basic hore ka sii dhiso ayuu madhow ka faham og yahay waxan. Okay. waxaan video hore kaga waranay string waxaan ku sheegnay waa value walba kaas oo hadduu halima ama laba dhinac laga mariyo single quote ama hareeraha laga mariyo maxay double quote ayaan ku sheegnay. taas waa taa bal maanta stringiga haddii aan sii wadno saddex shay ayaanu ka eegi doonaa. qodobka ugu horeeya aynu ka eegi doonaa waxa loo yaqaanaa check string yaana dhihin check string waa qodobkeena labaad. qodobka hore aan ka eegno waxa loo yaqaanaa string length. waxa weeyaan tusaale tagas baan qornaa tusaale kale waxa hello world ereyga dhameystiran buu ma ogaan karaynaa kelmadda ama sentence-kaasi inta erey ee uu ka kooban yahay ha seen ku ogaanay inagoo adeegsanna function keenya loo yaqaanaa length. tusaale oo kale saaxiibkay kasoo qaada Visual Studio Code ka ayaan imanay marka Visual Studio Code ka imanay baa 10 baynu samaysanay. Okay keeni hore laftigiisa miyana magaca ka bedelin 40 ma rabeen aan ka dhigo lesson horta magaca ka bedelo keeni hore waayo inaan ka dhigaa maxay lesson 40 wayna ka dhigaa. Okay keeni cusub inoo sameeyo wax ka dhigana maxay doonaydo lesson 41.py. Okay bal saaxiibka halkan u fiirso tusaale kale waxaanu samaysanay variable loo yaqaan names ama variable loo yaqaan name. deetana waxaan ku gudirinay magacayga oo ah maxay Abdi Aziz Hussein Ahmed. ma ogaan karayaa magaca sida u dheer ama tagaska sida u dheer ama stringiga sida u dheer inta xuruuf uu ka koobo imka waan tirin karina waa caadi laakiin hadduu bal ka waran book dhameystiran uu yahay imka Abdi Aziz waa iska caadi waa a iyo eedaba la soo laba ma 3 4 5 6 toddoba 8 9 10 adoo macal spaces ka lagu daraya caadi aan tirino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 space ka 12 13 14 15 16 17 19 tayban rajeynaya maanta way gooraysan magacayga tiriyo. Okay printi waxa leeyahay waxa soo daawada hadduu alla idmo imka hadaan dhahna name-ka soo daawaco isla garanaa magacayga la soo daaway laakiin waxaan rabnaa in stringigan inta uu tiro leeyahay ama inta xaraf uu ka kooban yahay sida darteed waxaan qoraynaa function loo yaqaanay length ma qoraynaa length kana waa aynu soo xidhaynaa sheekadu badhan wuxuu noo sheegi doonaa inta xaraf uu ka kooban yahay macal spaces ka ay ku daraya aynu eegno wuxuu nagu dhaw 24 waa saxsan haddaan imka xaraf ku darno kale ama space yar aan ku darno 25 buu ka dhigaya macal spaces ka uu tirinaya waa ka inagu 25 sala socon ma haddaan ku darnaa calaamad tacajub wax wal oo lagu daro mar walba wuxuu eegay labada double code wuxuu u dhaxay ilaa inaga dhaanay value walba oo u dhaxaya laba bahal laba single code ama laba double code waxa laga soo qaaday in yahay string. Okay taas waa taa oo waxa loo yaqaanaa string length baa loo yaqaanaa sida loo soo saaro waana la aragtaan jeeniya waxa loo yaqaanaa check string. Okay labada ma teegda check string waa maxay waxa inaan ogaano hadduu alla idmo tusaale string oo kale inoo qoraal markaan string leey tagas baan ka wada tusaale tagas oo kale inoo qorna waxa noogu jira variable kale oo yaqaan txt noogu jira ma ogaan karaynaa ama shardi ma ka dhigi karaynaa ama ma jeegarayna ma dhigi karaynaa if haddii qoraalka noocaas ku jira tagaskeeni qoraalkaas soo saar haddii kalena sidaas soo saar. tusaale kale marka tagaskeeni waxa noogu jiray qoraal ah that best things in life are free. waxaan samaysanay if condition if haddii ereyga loo yaqaan free oo halka ah ku jiray haddii tagaskeena ku dhex jiro qoraalka inoo soo saar balaan si kala u dhigno. tusaale waxaan samaysanay variable loo yaqaan name waxa noogu jira magacayga ku jira Abdi Aziz dadna waxaan samaysanay wax waan jeegareyn waxa la if haddii magaca loo yaqaan Hussein hadduu ku jiro meesha Hussein hadduu ku jiro in halkee hadduu ku jiro variable-ka loo yaqaan name print waxaad noo soo daawadaa hadduu alla idmo maxay noo soo daawada ereyga odhanaya welcome noo soo daawa haddii kalena miya else baan leenahay waana else aan ku sii dari kareen haddii kale miya oo aanu ku jirin miya haddii aanu ku jirin waxaad noo soo daawadaa goodbye. marka waa checking waxaan checkaraynaa mala socota ugu hore waxaan samaysanay variable-ka loo yaqaanay waxa noogu jira value Abdi Aziz Hussein Ahmed if banda if haddii magaca loo yaqaan Hussein hadduu ku jiro name-keena waa ruu ku jira isku sina uu qorayn print welcome noo soo daawa haddii kalena
goodbye markaas darteed inagu waxaan sugaynaa welcome la soo waayo ereyga loo yaqaan Hussein uu ku jira qoraalkeeni ayna eegno waxaa loo soo dhaw ereyga ahaa maxay welcome aan ku soo dhaweeyo ereyga la soo dhaw ereyga maxay ahaa welcome waayo waxbaan jeegareen haddaan imka halkaa ka dhigna ka hor magacaan ku jirin ba meeshaan ka dhig tusaale waxaan gelinay magaca ducaale halkaa kuma jiri tegiskeena miyuu ku jira ama سادرتي goodbye بين نص بحث أنت ترى نكودانو هاي نص بحث إريجا أنا يا هي goodbye تصنع وا checking key أوكي أنا سكير يرينو أوكي waxaan rabnaa wax walaal tag iska xidheen iska dhameeyno waxaan imanayna imkaan ka soo gudubinay string length iyo check string waxaan imanayna wax loo yaqaan check if not waxaan tijaabinaynaa in aanu ku jirin hadama haynu ku jiro watii hore cagsigeeda in aanu ku jirin ayaan tijaabinaynaa oo tusaale tag sponsor la faariba tag loo yaqaan waxaan gelinaa qiimaha the best things qoraalkaas ayna ugu qornaa marka waxaan dhahay if hadii ereyga loo yaqaan expensive ereyga loo yaqaan not in tags hadaa aanu ku jirin tii hore marka waxaan eegaynaa maxay markaa ka taagnayn check in it baa tan waxay check if not weya di aanay ku jirin tusaale variable baa ka inoo sameeyay Soomaali loo qaadanay waxaan ugu jiro qoraal ah Cabdi Xuseen Axmed waxaan leenahay if hadii magaca loo yaqaan ducaale not in hadii aanu ku jirin not in hadii aanu ku jirin qoraalkeena waxaad noo soo saartaa welcome haduu ku jirana waxay noo soo saar ereyga goodbye aan tijaabino dadna maxay noo soo baxay qoraalka welcome by noo soo baxay waayo sababtu waa maxay qoraalkaasi kuma jiro insha Allah intaan ku gudubno fiidiyoga noo soo socon kartaa. Assalamu alaykum.